السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا داونيسا idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan jimco wanaagsan. taariikhdu waa 8 bisha December sanadka 2023. qodobada barnaamijka aan idinku hayo maanta jimcaha iyadoo barnaamijkan uu yahay kii ugu horeeyay barnaamijyadeena maanta waxaa ka mid ah halkee buu marayaa dagaalkii ka soconayay magaalada Gaza, tirada askarta Israa'iiliyiinta ee ku dhimatay Gaza oo sii kordhaysa, qaramada midoobay oo kulan looga harisanayo qorshaha uu wado Antonio Guterres xogayaha guud ee ku saabsan qodobka 99aad ee xeerka qaramada midoobay ayaa kulankeedu uu dhici doonaa saacadaha soo socda. durbaba Mareykanka oo ka hor yimid sida la sheegayo. safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Baghdad oo weerar culus lagu qaaday. sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo markaa dhoolatus la yaab leh ka sameeyay socdaalkii uu ku tagay bariga dhexe, iyadoo Mareykanka iyo Ingiriiska maraakiibtooda iyo saldhigyadooda dagaalka ay heegan galeen, isagoo horey usii kaxaystay Putin diyaarado wata gantaalaha nuclearka. haddaba sheekadaas waan idin hayaa. sheekada kale ugu xiisaha badan waxaan idin hayaa ciidamada badda ee boqortooyada Ingiriiska ayaa waxay sheegeen in wax aan la garanayn ay maalin walba la hadlaan maraakiibta kuwa jooga badda cas. majiniya ilaahay ku diray ma wax kala ku socda. sheeko yaab leh ayaan arinta iyana idinkaga hayaa. qaybta dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waa tahay kulan wanaagsan khiyaaray jimco wanaagsan. qodobada muhiimka ah ee xiisaha leh way noo soo socdaan. marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu socdaal ku tagay bariga dhexe. socdaalkiisaas waxaa la sheegay in ujeedadiisu ay ahayd in uu ku booqdo wadamada Saudi Arabia iyo Imaaraadka. dhowr jeer oo hore NATO waxay ku celcelinayeen ninkan waa la soo xirayaa, dambiilo waaye. ninka Putin la yiraahdo maxkamadda dambiyada warqad ka soo saartay waa la soo xiraa. haddana shirkii BRICS ee madaxda Chinaha iyo ay ku ballansanaayeen iyo saaxiibada Ruushka oo Koonfur Afrika ka dhacay wuu ka baaqday, wuu baqayay dheheen, wuu cabsaday. ninkan ma ka soo bixi karo wadanka Ruushka. war sidaas ma ahna ma u kaadisaan. haddii Ruushka madaxweynihiisa aad taabataan adduunkan laguma wada joogi doonee ma ka fiirsataan. maya, diyaaradda hala ii cabeeyo yidhi. diyaaradda hala iisoo waxaan aadaa bariga dhexe. bariga dhexe soo Mareykanka ma joogo, badda maraakiib soo uma yaalaan, soo wadamada Sacuudiga iyo maxay ahayto Imaaraadka iyo saldhigyadiisa soo kuma yaalaan iyo Qatar iyo dhulkaasoo dhan. haa, meesha aadaayo. haddii marka wax la isku hayo halay taabto yiri. waaye marka waxyaabaha la yaab kale marka waxaa ka qoray journaalka telefishinka la yiraahdo Euro News ee wadamada Yurub ay leeyihiin. waxa uu leeyahay 4 diyaaradood oo kuwa dagaalka noocooduna yahay Su-35 ayaa la socday diyaaradda Putin Moscow ka baxaysay isla markaana ku wajahnayd markii booqashada uu ku tagayay bariga dhexe. warbixinta oo sii socotay waxay leedahay koox diyaarada kuwa dagaalka ah ayaa galbiyay madaxweynaha Ruushka. iyaga ayaa la socday safarkiisii caalamiga ahaa. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushkana waxay sheegtay in diyaaradahaasi ay ku qalabaysnaayeen kuna hubaysnaayeen mid kasta 4 gantaal oo cirka ah oo markaa loogu talagalay in lagu difaaco madaxweynaha. waxay soo kale wateen gantaalo nuclear ah. diyaaradda waxay leedahay Su-35 la yiraahdaa. 4 diyaaradaha Ruushka uu ku dhaarto waa noocii ugu dambeeyay ee dagaal u haysto waaye.
diyaaradahaasaa marka afaraa dhinacyada ka socota midiiba 4 gantaal ay ku hubaysan tahay marka waa 16 gantaal oo qaar nuclear ay yihiin madaxweynaha marka safarkiisa haddaan idin tuso qariidada ruushka waa geesku u yaallaa waa tahay haddaba sidaa arkaysaan ruushku meesha geeska uu jiraa waa calaamada jaalaha ah halka ah waaye marka diyaaradiisu halkaasay kasoo baxdaa la leeyahay waxay soo martay dhankan guduudka ah waddanka la yidhaahdo Uzbekistan kadibna waxay soo dul martay waddanka Iran ilaa Iran geeska kale ay ka timaado waxay kasoo gudubtay badda u dhaxaysa Cumaan iyo Bandar Abbas meesha la yiraahdo korkeeda ayay kasoo gudubtay kadibna Dubai ay soo gashay kadibna waxay u soo gudubtay Saudi Arabia haddana isla wadadaas ayuu ku laabtay marka halkaas marka waxa ku dhow meesha maraakiibta Ingiriiska iyo Mareykanka ay leeyihiin waa ilaalinaynaa badda cas halkaasaan ka ilaalinaynaa ay leeyihiin marka wuxuu dhahay aniga haddaan cabsanayo iyo haddaan baqaayaba haddee waa arkaysaanu yidhi ciddii wax isku haysa oo Putin rabta inay soo aado ha soo aado taageen marka haddana kaaga daran markii uu ka soo laabtay Sacuudiga iyo Imaaraadka oo si fiican la isku soo marxabeeyay madaxweynaha Iran wuxuu ku ballansaday Moscow iyagu imaawil madaxweynaha Iran Kremlinka lagu qaabilay markii la soo laabtay arinta Gaza xoog looga hadlay hubka ay kala qaadanayaan Iran iyo maaragtay Ruushka laga wada hadlay diyaaradaha Iran ay u baahan tahay waa kuwa hadda marka waardiyeynayay madaxweynaha Ruushka waxa la yiraahdaa Su-35 diyaaradahaas marka ayay Iran rabtaa inay ka gadato waaya marka barnaamijku noo sii socon doonaa sheeko cajiiba ayaa qaybta dambe ku soo qaadan doonaa maraakiibtii Ingiriiska uu u diray badda cas mid ka mid ah af labadii uu qayliyay wax aan la garanayna nala hadlo yiri meeshaan wax aan la garanaynin aan nala hadlo jinniya miya wax kala miya lama yaqaan waa la yaaban yahay marka sheekadaas cajiibka gadaala idinkaga keeni doonaa waa tahay qodobka kale ee aan u gudbayno barnaamijku wuxuu yahay ciidamada Israa'iil ayaa waxay sheegeen askar cusub inay ka dhinteen yaa dhimanayo marka askaraa dhimatay haddaa maqashaan askari ha suginaysa sarkaal le dhimanayo waa sheekada ilaa hadda adduunyadu ka yaaban tahay waayahay Al Jazeera waxay leedahay ciidanka Israa'iil waxay sheegeen in ay sheegeen laba sarkaal oo ka tirsan ciidankooda in dagaal daran oo ka dhacay Khan Yunis ay ku dhinteen waaya marka waxay leedahay marka Al Jazeera tirada waxay ka dhigtay maanta tan iyo markii ciidanka dhulka ay ku galeen ay kaga dhintay Gaza 94 shalay waxay ahayd barnaamijkii hore 90 kii xalay 92 hadda waxay maraysaa 94 tirada guud askarta marka ilaa 7 Oktoobar markii dagaalka uu bilowday 63 maalmood gudahood uga dhimatayna waa 418 marka waa sheeko marka aad cajiib oo la yaab leh waaye maanta qaramada midoobay oo Jimcaha waxa ku kulmaya golaha ammaanka shalay waxaan idin sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu aad ula hadlay golaha ammaanka uu isticmaalay qodobkii ugu weynaa 99 adduunyada khatar ku jirta waa in dadkan la badbaadiyaa ayuu leeyahay laakiin durbaba Mareykankaasi hadlay inta golaha ammaanku aanu fariisan waxay yiraahdeen waqtigeeda lama joogo qodobkan iyo waxa kan adduunyo khatar ku jirtana ma jirtee yaa khatar keeni kara meeshaan yaa la iswareerinayno taageen marka kullay golaha ammaanka way fariisan doonaan wixii qorshaha oo ka soo baxa waa arki doonaa dhanka kale laakiin waxaan la yaabanahay aniga wasiiradii wadamada islaamka iyo kuwii carabta ee go'aamada magaalada Riyaad ku gaaray una qabateyntan jibinaynaa awoodaan ku geynaynaa gurmadka meesha wixii aawe wax ka jira ma jiraan hadda waxay joogaan Mareykan
macallinka weyn ay baryayaan waxay leeyihin war naga dhaaf war waxaan hadda dagaal ma geli karno adduunyadan dagaal iyo qarrac ma la rabo dadkan carabta masaakiinta falastiiniyiinta dowlad aan u dhisnay leeyihin sheekada marka la yaab kale waxaa la leeyahay aan idin tuso joornaalka la yidhaahdo asharqul awsad ayaa wuxuu qoray wasiirada carabta iyo kuwa islaamku waxay wada hadallo la leeyihiin ku saabsan arrinta gaza sidii wax looga qaban lahaa xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka waddanka maraykanka haye marka waxay marka codsanayaan sidii xuquuqdoodii sharciga ahayd ay u heli lahaayeen falastiiniyiinta waa kuwaan la fadhiya qaramada midoobey way kusoo daaleen hadda baarlamaankii waxay baryayaan maraykanka xubnihii baarlamaanka waxay leeyihin war waxa kan dagaal tabarteedna maahan carab iyo waxa kan islaam iyo haddaan nahay waana ku ceebeysannahay shucuubteenne war nimankan xuquuqdooda sharciga dowladnimadooda hala siiyo hawshan hana laka dhameeyay marka heerkaasaa marka la marayaa qodobkaas isaguna halkaa ayaan kaga baxay qodob kale muhiim baan rabaa barnaamijka isagana inaan kusoo qaato oo in yar ka iraado waxaa aada la isla dhex marayaa dad falastiiniyiin ah oo dharkii inta laga bixiyey oo kastuumooyin iyo surwaallo dabagaabyo lagu reebay oo la leeyahay askarta israa'iil ayaa soo qabatay haddaba aan idin tuso marka joornaalka la yidhaha alqudus alcarabi ee kasoo baxa magaalada london wuxuu leeyahay ciidamada gumaystaha waxa ay qabteen dad rayid ah oo qaxayay waxayna kasoo aruursadeen xilligii ay dagaalka culus uu ka socday waqooyiga magaalada gaza madaarasooyinka ama iskuullada halkaa oo ay dadkaa isaga dhuumanayeen dad rayida oo meelaha ku dhuumanayay oo dagaalka ka baqayay ayay inta soo aruursadeen ee dharka ka bixiyeen markaasaa miidiyahooda waxay leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin waa xamaas oo lasoo qaqabtay qaar waxay leeyihin war xamaas ma ahna waa dad rayida marka xamaasaa marka war soo saartay waxay leedahay falkaas waa fal argagixiso waaye dad masaakiina oo qaxootiya oo qaxaya in inta lasoo qabto dharka laga bixiyo surwaalla lagu reebo taas dee wax dagaal ma ah xamaasna ma ahana yidhaahdeen xamaas waa la yaqaanaa nimanka alyaasiin wata waaye godadka ku jira ee imaada xamaas dadka masaakiinta meelaha ka gurubsateen xamaas ma aha marka arrintaas iyaduna aadaa loo hadalhayaa miidiyaha aada bay uga hadlayaan laakiin waxaaba isku khilaafsan miidiyihii israa'iil qaar waxay leeyihiin waa dad shacaba oo masaakiina qaarna waxay leeyihiin waa ciidamada muxuu ahaa xamaas oo lasoo qabtay qodobkaas isaguna intaa kaga gudubnaana qodobka kale ee muhiimka ah maraykanka waxay sheegeen dagaalka lagu hayo dalka ciraaq gudihiisa inuu soo kululaanayo maalmahan maalin hore ahayd markaan ka hadlaynay saldhig military oo liraa caynul asad in qiiqa laga bixiyey hadda waxaa la weeraray safaaradii weyneed ee maraykanka uu ku lahaa magaalada baqhdaad maraykankii waa qayliyey wuxuu leeyahay dowladda ciraaqay diblomaasiyiinta waa inaa ilaalisaan haddaba aan idintusoo warbixin aljaziira ay ka qortay hujuum ama weerar dhinaca sawaariiqda ah ayaa lagu qaaday safaaradda maraykanka uu ku leeyahay magaalada baqhdaad haddaba marka waxaa leeyahay safaaraddii nawaaxigeeda oo dhan qiiqa ka kacay gow nimankan weliba waxay ku garaacayaan sawaariiqay ku garaacayaan nimanka ciraaq jooga caadi ma ah hubkii iiraan oo dhan ayaga si fudud ay ku heli karaan maadaama iiraan ay xuduud la leeyihiin kaatiyoosha iyo alaab ay haystaan markaasay dhagaha uga garaacayaan qodobkaas isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa qodobka ugu xiisaha leh marka barnaamijka aan kusoo gabagabaynaya idiin sheegaan saad ogtihiin ingiriiska wuxuu u diray maraakiib badda cas maraykanaa ka wariyey waxay yidhaahdeen waxaan waardiyeynaynaa maraakiibta halkaa maraysa waxaan ka ilaalinaynaa xuuti iyo iiraan waaya nimankii meeshay tageen marka sheeko la yaabla marka hadda maanta aan ku arkay newska waxaa leeyahay wax aan la garanayn aanala hadlaaya dhehen maraakiibta halkaa maraysa fiiri markabka xamuulka ay halkaa maraya ayaa waxaa usoo galaya wax aan la garanayn kadib waxay leeyihin masaarka aada ku socotid ama meesha aad ku socotid ka leexo meeshaas ma mari karta adigi xagga ka leexo markaase sidii marka nimankii oo maraakiibta warkii leesay u wadwadeen ingiriiska ciidankiisii badda
ayaa lagu dayay hadda cid la hadlaysana ma yaqaan maraakiibtooda dagaalka al amra haddaa xagga haddaa isku aada iska jiraan leey haddaba sheekadan marka waa sii wadi doonaa marka hore qoraalka laga qoray iyo sida ay xiisaha u leedahay bal aan idinla socodsiiyo waaya telefishinka al carabiya ee laga leeyahay waddanka sacuudi arabiya ayaa warbixin aada u xiiso badan qoray wuxuu leeyahay ciidamada badda ee britain waxay sheegeen kiyaan majhuul wax aan la garanayn inay amar siinayaan markabka oo ay leeyihiin meesha aad ku socogtid ka wareeg badda cas oo dhan waxaasaa haysta waxa ma yamaniniina majina wax yaqaana lama arko markay bahalkii fariistaan ee kor fariistaan oo ay bahalkii meesha codka ka imaana isku dayaan mar wuxuu aadinaa yaman mar meel kale mar dhulka hoostiisa marba meeloo aadaa marka waxay yidhaahdeen maraakiibtii kale wargeliyeen kuwa ingiriiska meesha jooga waxay yidhahdeen war khataraa jirtay ogaada waxaa la soo galaa systemka waana lala hadlaa kiyaan majhuul af carabiga waxaa lagu yidhahdaa wax aan la kaseeninba wuxuu yahay ma la yaqaano alle soo arrin cajiiba ma ah marka arrintaas marka iyaduna khalkhalaa galaa leeyahay maraakiibtii maraykan iyo kuwii ingiriis ee badda cas inay xuutii la dagaalamaan ayaa halkaas hadda cabsi soo food saartay iyagii iyo kuwii marayay wixii dhan majiniye ilaahay uu soo diraa meesha jooga ma wax kalaa jooga yaa yaqaan waa la yaabaya haddaba barnaamijka intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa jimco wanaagsan mar kale barnaamijkan wuxuu kii ugu horreeyey meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo